Bismillahirrahmanirrahim. This is Bilal Institute of Language, as you can see from the board. We try to take a photo of a lecture which is going on at this particular moment. We'll try to talk to the students as well as the teacher. We'd like to ask them how many years they've been studying in this institute. Dear teacher, how many years have you been teaching in this institute? I have been teaching them for the last 6 years. 6 years? Yeah. And what level are they at now? They are starting from primary up to intermediate level. What level is this particular class? Yeah, from standard 4 up to standard 8. What are they now? What level are they now? Standard 8 or They are 7? mixed. They are mixed. Okay, so you teach each of them separately. Separately, Is there anyone in particular you think would like to answer our questions? Any particular student you'd like to pick? Yeah, this one and that one they can. Okay, They can answer. what's your name? My name is Abdullah. What level are you studying now? Level Standard 3. Standard 5. Standard 5. How long have you been studying English? I've been studying 2 years. 2 years now. Yes. Do you study any other subjects like sciences, maths, any other subjects at all? No. No, just English. Just English. Okay. Actually, And Kiswahili. And maths. Okay. And maths. Thank you very much. Where's the other student? You can ask them that one. What's your name? my name's Dan. Do you go to school apart from this institute? Do you go to any other school? Yes. What is it called? Huh? What is your other school's name? Where is it? The other one, Ayan. Bayan. Oh, thank you very much. Okay, as you can see, there's few girls here as well. What's your name here? They are beginners. Okay, They are beginners. As you see, their textbook. they're just doing math. Books, they're just doing math. Okay, thank you very much. Also, we teach some others Somali. You see, this is one boy. Okay. He's learning about this is math. He's learning Somali. Then we start teaching English and Swahili. Okay. Yeah. Dear teacher, we didn't ask you your name. What was your name? My name is Osman Halolato. Thank you ever so much. Thank you very much. Thank you guys. isbitaalka cusub degmada Balaxaw waxaa loogu talagalay in la keeno dadka bukaanka ah isbitaal si gaar ah loo leeyahay aska leh dad ganacsato Soomaaliyeed waliba oo dhalatay dadka Balaxaw Yar baan ku soo diray. ugu horeysa kiiska Yar baan ku soo diray furnaanaya. halkan waa farmashiyaha loogu talagalay daawada isbitaalkan mustashfى waa isbitaalkan farmashiyaha haysa isbitaal boqol والله اني وانا عندي عشان لا تتمشى جوالي شيباركا كان عليه خليفه عبد الشريف كان محل خليفه عبد الشريف وقربت فقط في سلوية هل كان قربت شيباركا ساكي سبعة كجرو اختار كباري شيباركا عليكم السلام. دكتور مقعده aniga waxaa la yiraahdaa hawsha shabaq ما شاء الله. والله شيباركا كجرتان والله shaybaarkan ku jira hadda waxaan fiirinaa sample page aan fiirinaa maalintii ugu yaraan ama ugu badnaan naqaaqa bishana wallahi adiga ilaa 30 40 ya qof aan qaab cudurrada ugu badan daweysan maxaa kamid ah wallahi aniga hadda shaybaarkan fiir macnaha waxaan daaweynaa waxaan shaybaarka ayaan baarnaa saxarada kaadida dhiigga malaariyada cudurrada ugu badan ee laga helo maxaa kamid ah wallahi waa adiga qooryaanada qaarkood waa laga helaa inta badan waxaa kaloo kamid ah malaariyada waa idin dhib waay cudurrada tifo ya waxaan maqlay inay ku badan tahay deegaankan malaariyada malaariyada waa ku badan tahay waa aad u badan parasitamol oo badan yahay qooryaanada qaarkood ya cudurro cusub oo hore aan loo arag inta ku arkay jirta wallahi aniga cudurkan oo hadda aad ugu badan wuxuu yahay H pylori cudurka la yiraahdo oo gaaska keena ya ayaa u badan ta kaasa ugu badan yaa kaloo kala shaqeynaysan shabaab qaybta shaybaarka waxaan ku jirnaa 3 shaybaaryaal adiga Maxamuud aniga Maxamuud iyo Leera Abdulwali wali oo halkan fadhiyo Maxamuud abdul qaybtu qabsan yahay Abdulwali qaybta diyaarinta oo
Preparation. Okay. Thank you. داوينت دمر مياه هواوين كنت خصوصي واحد هذا هواوين كنت خصوصي توريس مقعد ليلى حس الشغالين تقول واي هذيك عقب انت هذا هواوين انا محاله مستعد عن قاعد كل شيء ما يبغى هو بدنا ندوزن حكمدا عذرada haweenka ku dhaca oo aad ku farabadan oo qaybo badan u kala baxa waxaan ku lahayd kuwa dhalmada u gaarka ah raashka meydada buufiska wax alla iyo cuduradaas oo wax alla iyo haweenka ku takhaluso oo dhan ayaa inta qaban aagan waxa ku badan haweenka ay dali waa inta badan arrintaas xal ma heshaan kan inta badan isku dayna ilaahay insha Allah inta qaybo qalinka ay naga maqayn hadda waxaan kala garanaynaa inaan isku dayno ilmaha oo aan normal ku dhalin inaan isku dayno xafiiskan maalintii meeqa ku qaabshaan والله ما يرهب يرهب بعد ما نجوا قابلنا ولو هو بدن haweenka kacabaan كنت لو كعبنا يعني دول في الفكشن كان كعبنا يعني دول راشك من دول سمينا دعس كسو هلابين waxay ka cabanayaan maxaan ku lahaayay cudurada xamil inta badan caasimada moogiye aan lagu daaweyn jirin meelahan oo ay ka mid tahay xanuunada dumarka laga baaro ah toxoplasmada boroseelada waxyaalahaas dawooyinka xagee ka heshaan dawooyinka wallahi xamar baa inta intooda badan laga keenay Good. Oh, maasanta. activationka oo ragga waa inkaan aad iyo badan weli waxaa moodaa in istaalku cusub yahay oo bank aan si fiican isku baran istaalkan sida arkaysaan waa cusub yahay iminka ayaa laga dhisay ilaa saakii waxaa la sheegay in 4 qof ay ka baxday basta hadba sida ay noqdaan khalif adiga waxaa ka mid tahay waxir inta macaamiisha joogtaa qaybta soo dhaweynta ka samay maalintii anaa qaabishan والله ضد ما قابلنا لا iyo 35 ilaa 40 meelahaas waxyaabaha ugu badan dadka ka cawdaan markay soo gaaraan maxay ka cudurro aanan macnihii hore dhiig aan halka lagu qaadi jirin oo hadda la qaada ayaa ka mid maanta oo kale maxaa ka baxay sida dhiigga beerka wadnaha kelyaha maanta oo kale istaan maxaa ka baxay ilaa 4 qof hadda halkan ka baxday oo caruur yar oo shuunbiyada la daweeyay kadib la baxay iminka sida aragtaan waxaa booqasho ku joognaa isbitaalka Shifa oo isagu ah isbitaal mar dhaweyto degmada laga hirgeliyay markaas ay hirgeliyeen dhalinyaro markaas u dhashay gobolka Nigado oo isugu jira dhalinyaro ku sugan gobolka iyo waliba kuwa markaas dibadaha ka yimid tanna waxay calaamad u tahay la oran karaa maalgelinta ay dhalinyarada gobolka Nigado ama odayaashooda ay ku sugan qurbaha iyo waliba kuwa ku sugan degmada ama gobolka iskaashi ay sameeyeen ay ku doonayaan